aayaadkii la akhrinayo waxaan gartay in laga warramay bir alwaalidayn waxaan isku dayi doonaa intii uu nusuus akhriyay inaan ka tago balana inaan inku beerin kara inaan tilmaamo ugu horreyn markaynu ka waranno labada waalid iyo samafalkooda afar suuradood oo qur'aan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wabilwaalidayni ihsaana fi suurati albaqara nisaa ancaam iyo israa في سورة الأحقافنا وبوالديه إحسانا شنطة آيادود إلهي إحسان بكت المامين الله سمعيه في سورة العنكبوتنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي إلهي تلمامية في سورة اللقمان إلهي وحت المامية أيضا مطلقة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن مركان انت اسكود الرطو دبدا آيادود إحسان يا حسن الشيقية وإن والدك الله سمفله إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن وكلا قرآن أبوك قورما يا والدك يا سيد الله سمفليه وحكى له قرآن كوينات المام يا وسمفلك والدك إنا نكحدنين دين توهيسته والدك إنه مسلم يهي إنه قال يهي إنه فاسق يهي إنه فاجر يمدنا بكم حنا هدو والد بن نقضى والصفة سليه يهي إنه والد يهي وحليه إن الله سمفله سادرادت با إلهي وحكوت المامية سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة با إلهي المامية وصاحبهما في الدنيا معروفة لبدا والد إلهي وحي حقي ساهديكو إلى هذان كتك كأقبال بالليل أما وحكا صهره وصاحبهما في الدنيا معروفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لبدا يدودان أخريي لبدا بإلهي وحكوت المام يا والدكو إنو السمفلي هي أدون كان لوغو السمفلي دين توهيستا وحي دون تبها النغطي سيدا أوجد waxaad dareemaysaa ilaahay subxaana wa tacaala mansilada waalidka sida uu xoojiyey ama se uga warramayo bale marka ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada qur-aanka ku ammaanaya nebiye ka mida ilaahay wuxuu ku ammaanay inay waalidkood qaar u samafalo ahaayeen saa daraaddeed baa ilaahay nebi yaxya wuxuu ku tilmaamayaa wabaran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya inuu ahaa mid u samafala labadiisa waalid mana ahayn baa ilaahay leeyahay jabbaaran casiya mid jabaruud yacni labada aayadood dambe aan tilmaami doono aayaddan iyo aayadda dambeba ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waalidka oo loo sabafali waayaa inay jabbaarnimo tahay saa daraaddeed baa ilaahay nebi ciisena wuxuu ku tilmaamayaa wabaran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya waalidka markaas haddaad samafalkiisa ka tagto وتجبر يتكبر أي إلهي سبحانه وتعالى كنت المامية شقي يعسنا ولا كنت المامية إنه قف عاصي هاي أو قف شقي هاي وصفات كاحن حن لا هاي بقى إلهي كصفين يا أم بيدنا لجاء فينا ينان تعالى هاي وحقوق فلان طاعة والد لا طاعية سبب فالكود وهالكي جارسي سنت هاي قصة إلهي نوجا ورمى يا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل إلهي قرآن كوحو كنت المامية نبي إبراهيم إن إلهي وحيودي إنه ويل كيسي إسماعيل ها قالوا يضل يتحاميو دبتنا إن كيسي مو أصر ومنين من اللقون شبارين وحبك لا تونكم السمين ورعد بو شيء يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ويل كيجي وما ويل يرهيجيو وحا الريال يقول تصي ورؤيا الأنبياء وحي وحا الله يفري inaan ku gowraco bal maxay adiga kula tahay buu weydiinaya waxa la weydiinayaa nabi ismaaciil waxa weeyaan waa lagu gowracayaa ayay kula muuqataa isna wuxuu leeyahay abati fa'al ma tu'mar satajiduni in shaa Allah min as-sabirin aba wixii alla ku farayeel waxaad heli doontaa haddii rabbi xukumo anigoo kamida inta sabirta wuxuu ku ateecayaa aabihii inuu gowraco bireeyo wax ka sokeeya markaa maxaad u malaynaysaa wax ka sokeeya nolosha
halkay gaadhsiisantahay haddii ilaahay uu rasuulkan ku tilmaamayo inuu aabbihii ku ateecay inuu gowraca aqbalo. idan labada waalid samafalkoodu waa min addiin, waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweynee ilaahay qur-aanka inugu faray, nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna in badan ay tilmaamayso. iyadoo loo samafali waayana wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu malcuun yahay, malcuun inuu yahay labada waalid ninka caaq ku noqda. ama axaadiista waxay ku tilmaamaysaa kabaa'irta waaweyn inay ka tirsan tahay cuquuqulwaalideynku. sidaa awgood waxaan waxoogaa ka tilmaami doonaa waxoogaa axaadiisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo uu tilmaamaya mansilada ay gaadhsiisan yihiin. saxaabigii la odhan jiray xaarisata bnu nucmaan, xadiidka ibnu xibbaan warinayo, sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo, wuxuu nebigu leeyahy baynamaa ana aduuru fi ljanna samictu sawta qaari faqultu man haada faqaaluu xaarisata bnu nucmaanin kadalika albir. anigoo jannada maraya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayaan sawt qur'aan nin akhrinaya maqlay, dabeetana waa kuma baan idha waa xaarisata bnu nucmaan baa la yidhi. yani nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa wiilkani samafalku kadalika albiri buu nebigu ku tilmaamayay. waxaa kuugu filan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay taabiciintaba ninka ugu fadli badani inuu yahay ina khayru taabiciin rajulu yuqaalu lahu uways walahu waalidatun wakana bihi bayaad famuruuhu falyastagfir lakum. taabiciin waxaa u khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin uways la yidhaahdo. ninkaa wuxuu nebigu ku sifeeyey hooyuu lahaa waana u samafali jiray, baras buu qabay, cudurkan caddeeya dadka diirka ka roga. ilaahay buu baryay subxaanahu wa tacaala, dabeetana ilaahay waa ka fayday. waxaa kaloo nebigu tilmaamayaa saxaabadiisii buu ku leeyahy haddaa aragtaan dembi dhaaf ilaahay noo weydi ku dhaha. cumar bin alkhadaab baa wuxuu raadiyey xadiidka saxiixu muslim ku yaalla markay reer muraad ama qaran qabiil yaman u dhashay markay yimaadeen ayuu ka dhex raadiyaa madadkii iman jiray ciidamadii ku socday frontka dagaalada ee jihaadka ahaa ayuu weydiin jiray war ma idinku jiraa ninkaasi. akhiiran waa loo tilmaamay, xadiidka lafdigiisu waa dheer iyo isagoo kooban baynu tilmaamaynaa. waa loo tilmaamay, wuu helay ninkii war barastii ninka ka bogsaday barta yare cadi ku hadhay adiga maye haa. wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii baan maqlo warkaa sheegaya ii ducee. markaasuu u duceeyey. kadib buu cumar waa amiiruulmu'miniin wuxuu yidhi xaggaad ku socotaa? aan waaliga muslimiinta ee hore govarnarka muslimka ee meesha aad ku socoto xukumaya aan waraaq kuugu qoree. waxaan ka jeclahay buu yidhi waxaad sheegayso fii khabraa'i innaas inaan ka tirsanaado. dadka inta aan la dareemin, inta aan la buunbuunin, qofka muslimka ahi wuxuu jecel yahay alle agtiisa inuu ku weynaado, laakiin dadka weynidoodu qiimo badan ma leh. saa awgeed buu taabiciga kani wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan layba ogaanin aan sidaa ku tago. beri dambe ayuu nin ka soo xajay yaman ayuu cumar qisadii u sheegay uu yidhi ninkaa ma aragtay? haa buu yidhi waxaan ka imi buu yidhi isagoo guri yaroo buula ku jira oo maryo dildillaacsan sita oo laa yaabah bihi nnaas, dadku aanay waxba weydiinin. markaasuu yidhi war ninkaa aad arkayso nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad aragtaan ka ducaysta oo ilaahay dembi dhaaf noo weydii ku dheh. ninkii xajkii markuu ka noqday buu uways u tegey. markaasuu yidhi waysow ii ducee. ways baa yidhi adigaaba iminka xajka ka yimo camal saalixa soo sameeyey safarna ka soo galay ee inoo ducee. markaasuu yidhi maya adigu ducee. dhowr jeer markuu ku celiyey ayuu ways markii dambe yidhi war ma cumar baad aragta? markaasuu yidhi haa. dabeetana waa u duceeyey, cidna hay sheegin buu yidhi oo iskaga tegey. burduu siiyey, maro la xidha buu siiyey. magaaladu waxay isweydiinaysay warkii uways ahaa maruu helay maanta talow yaa siiyey. yacni ninkani faqri intuu ka qabo iyo xaalkiisu halkuu joogo iyo nebi maxamed halkuu gaadhsiinaya calayhi salaatu wasalaam waa laba kala fog. dadka agtoodana waa ninkaa marada lagu jamanayo laleeyahay maanta maruu helaye xagguu marada ka keenay la isweydiinayo. sidaa awgeed ayuha alxiba, hadduu nebigu ku tilmaamayba ninkii u fiicnaa ama u khayr badnaa taabiciin, sifada koowaad ee laynaga siiyey waxa weeyaan inuu waalidkii u samafali jiray. waxaan si kooban u dulmari doonaa
axaadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaato tilmaamaya waxyaabaha tusaale layna siinaya waxyaabaha loogu samafalo labada waalid qur-aanku wuxuu tilmaamay in hadalka loo dabciyo in loo dhimriyo in loo samafalo wixii wanaag oo dhan in loo qabto waxay yidhaahdaan sida uu soo warinaya imaam albukhaariy fi ladab almufrad sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamayo abaa hurayra wuxuu arkay laba nin oo isdaba socda markaasuu midba wuxuu ku yidhi maa haadaa mink war ninkani muxuu kuu yahay markaasuu yidhi abi waa aabbahay waa laba nin oo wada socdo isdhalay ayuu abu hurayra arkay mid buu yidhi kani muxuu kuu yahay waa wiilkii markaasuu yidhi waa aabbahay abu hurayra wuxuu ku yidhi laa tusammihi bismih walaa tamshi amaamah walaa tajlis qablah aabbaha weligaa magaciisa ha ugu yeedhin buu yidhi hebelow ha ku odhanin hortiina ha soconin oo haddaa israacdaan ha ka horrayninoo aabbaha ayuu ku dabagelin haddaa fadhiisanaysaanna aabbaha hortii ha fadhiisanin buu abu hurayra ku leeyahy yacni wuxuu barayaa adabka qofka muslimkaa iyo waalidka sida uula dhaqmayo waxaynu naqaanaa samafalkooda nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa a wada maqashaan inta badan riyaadu saalixiinka ku qoran saddexdii nin ee godka galay ee roobka ka jirsada ee buurta dhagaxu ku soo dulundulcooday ee dabeetana uu daboolay waxay ku ducaysteen midba ducuu akhriyey midbaa ducadiisu waxay ahayd ilaahu waad og tahay inaan waalidkay u samafali jiray oo xoolaha markaan soo xareeyo carruurta iyo cidna inaanan waxba siin jirin inaan iyaga ugu horraysiiyo mooyaane labadiisii waalidoo waaweyn kadib ayaa maalin foofkii xooluhu la dheeraaday goor dambeoo habeena buu soo hoyday waalidkiioo gam-ay buu caanihii soo lusay deetana wuxuu is yidhi waalidka ha toosinin caadadaadiina ha baajinin oo caanaha cidna ha ka horsiinin carruurtiisiiyo halkan gaajaysan ayuu labadiisii waalid caana la dul fadhiistay dadka waaweyn waxaa lagu yaqaanaa inaanay hurdada aada uga boganin oo qofku markuu da' gaadho inta badan waa yara seexdaa waa soo toosa ilaahay ninka wuu itixaamo labadii waalidna indhaaba waa kala qaadi waayeen waa seexdeen waagaa ku bariyey ilaah waad ogtay buu leeyay intaan caana la dul fadhiistay in waagu ii bariyey sidaan caanaha ula dul fadhiyo anigoo aan cid kala siinin ee ilaahu dhagaxa naga fayd buu leeyay yacni waa duco uu ilaahay ku baryayo inuu waalid u samafalay dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala ka fayday waxaa kaaga filan inaynu soo aroorino xadiidka ibnu maaja iyo keyrkiiba warinayaan ee jaabir ibnu cabdillaahi uu leeyay nin baa nebiga u yimi oo wuxuu yidhi ina lii maalan wa walada wa ina abii yuriidu an yajtaaxa maali carruur iyo xoolaba waan leeyahay aabbana inuu xoolahayga qaataa buu doonayaa nebigu wuxuu ugu jawaabay anta wamaaluka liabiik adiga iyo xoolahaba aabbahaba isku leh adigu mar haddii aabbaha ku leeyahay waxaad haysatana isagaa leh ee cabashadaa ha la imanin cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab baa waxa u yimi nin la yidhaahdo taysalata ibnu mayaas taysala waa nin khawaarijtii ka mid ah khawaarijtuna afcaal badanoo xunxun bay sameeyeen deetana wuu toobad keenay markaasuu cabdillaahi ibnu cumar wuxuu ku leeyahay war wax badan baa iga dhacoo dhib ah maxaan sameeyaa intii aan khaarijiga ahaa xaruuriga ahaa wax badan baan sameeyey waa ka soo toobad keenaye maxaan sameeyaa ibnu cumar wuxuu ugu jawaabay atafraqu الnaar wa tuxibu an tadkhula aljanna naarta ma ka baqaysaa buu yidhi mase rabtaa inaad janno gasho dee ninkani wuxuu ugu yimi waa intaa haa buu yidhi ii wallah qaala axayun waalidaak war labadaadii waalid ma nool yihin buu ku yidhi qultu cindii ummi hooyaa joogta buu yidhi aabba ma noole eh qaala fawallaahi low alanta laha alkalaama waacamtaha aطacaama latadkhulanna aljannata ma jtanabta alkabaa'ir wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaad hadalka u dabciso quudiso waxay cunto siiso jannaad geli haddaad dunuubta waaweyn iskaga tagta buu leeyay yacni ibnu cumar ninkaa khaarijnimada ka soo noqday le waa toobad keenay acmaasha wanaagga uu u tilmaamayo inuu janno ku geli karo wuxuu u tilmaamaya inay tahay waalidka inuu u samafalo waalidka samafalkooda waxaad ka garan kartaa inay nusuustu in badan tilmaamaysa in la ateeco waa inagii soo marray qisadii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil dhex martay nebiguna calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo gabadh guursaday oo jecel baa u yimi deetana wuxuu yidhi aabbahay
ayaa gabadhaydii xaaskayga necbo wuxuu leeyahay fur kollay un waa wax diin ku saabsan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu cabdillaahi bnu cumar u yeedhay buu ku yidhi yaa cabdalla bnu cumar طلق امرأتك عبد الله بن عمر وقبض فربو كيري نبي عليه الصلاة والسلام وهو طيع بها مركله نباو يما أبي الدرداء صحابي اللي ورنشري مركز سيدي ريربان لاي هو يدينا مربطه وحي فرس أين انفره أبو الدرداء وحليه أنا وحن مغلبي للنبي عليه الصلاة والسلام وله الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع أنا وحن مغلى نبي قال أب والدك وأوسط أبواب الجنة الباب هذا الجنة كوا وفي عنا مكونه حيا ويان هدات ربطه ده إلى أشياء الباب كا هدات ربطنا ده أدوس كذا يعدي كشر تابولي محل الله قصة مفليا سيبر دلنت الضمبة هذا يقاط كوعنا ما وحن بوسة ما يا ما كم بوسة ما يا وسعر الرئيس أماها الله سما فليا hadday xaqu sheegitayna waa loo sheegayaa haddaanu adiga kaa qaadanayna cid uu ka qaadanayo aad garanaysa aad u tilmaami doontaa ku dadaal waalidkaasi aanu naar u galeen hadduu jid naareed hayo kadu waxa kugu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu kaga warramayo nebi ibraahim iyo aabbihii siduu la hadlayay wadkur fi lkitaabi ibraahiima innahu kaana sidiiqa nabiya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا siduu aabbihii u baryayo ee wanaagga ugu tilmaamaya qisada qur-aanka ku soo aroortay baa si cad inoogu tilmaamaysa aan tilmaamno Abu Hurayra iyo qisadiisii saxiix ku soo aroortay Abu Hurayra wuxuu leeyahay hooyaday baan u yeedhi jiray diinta ugu yeedhi jiray gaalad bay ahayd markaan diinta ugu yeedhanayana nabigay wax ka sheegi jirtay isagu wuxuu leeyahay kaalayo islaamo diin buu ugu yeedhayaa iyana waxay ugu jawaabaysaa canaadnimo waxay ka qabta marka kan inay nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegto anoo ooyayaan haddana nabiga u tagaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhaahdaa ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday baa diinta ugu yeedhay dabeetana wax xun oo adiga ku saabsan bay maqashiisa ilaahay ii bari buu Abu Hurayra leeyahay nebi maxamed in ilaahay hooyaday hanuuniyo ilaahay ii weydii nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor u taago rabbi baryay buu wuxuu leeyahay allaahumma hdi umma abi hurayra إلهي يو هانوني أبي هريرة هو يدي أنا قد دعادي النبي كفر أحسن بو يلبان دبو النقضي مركان قريجي كدوي البابكي أي قشفت إذا مغشى هو يستنقدي بين مغشى قريونا الباب ما لهينا وداه يرول إسكدوه مركان سكوت الروار هل كاجتشوك مركان سان مغلبي ولبيها استنقدوا دي بيها يسكو شبيستا إلهي دعادي النبي محمد بو أقبلي أوي إسلامتي أو دبتنا قال لي ما دي بكم ميرانيسا أبو هريرة أنتو سو سعودي بإسلامت مركزان أي تريبو يري هالكاغا تشوك كدي مركي أي غبيستي تري سو قلبو يري وحي قلت لي يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنا قو فرحت هدنا أوي ينكون نقضي بيري نبيك مركي هريسة قو أوي يون وحي نبيك لغا شيغا يهو يدي قال لي ما ده هيستك أوي يمي إما كان أنا أوي يا نبيك كون نقضي بيري عليه الصلاة والسلام مركاسان يقول إلهي رسولك سيو بشاريسو ربي الدعوة دي وأقبلي نبقى عليه الصلاة والسلام انتو إلهي أماني أو خير يريبو أيان هدنا أبو هريرة وحلي وحن كويري إلهي رسولك سيو واحد هدنا إيه بريده أنا هو يدي بين هيدتك نرجع علي سيو الدومها لين إلهي نرجع علي سيو نبقى عليه الصلاة والسلام مركلو أبو هريرة ودعي حديث صحيح مسلم بك يا الله اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبو هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين نبقوا حقود دعي إلى هو أدون كاغا كان أدون يرها كان أبا هريرة إسقي هو يدي بإله مدنا تشعلي سي يقولنا يتشعل هذا أبا هريرة وإنك أركيو حديثك أبا هريرة لقوا يدتكم ما بر ما يسنين بدني إذن وشعائل الله قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقود دعي
waxaan leenahay ilaahay u bari diin ugu yeedh raalli ahaanshahooda raadi oo wax ay ka damqadaan haba yaraatee culimmadu waxay dhahdaan cuquuqul waalideynka markay tacriifinayaan waa wax uu kahado waalidka ayoo aad sheegta bay idhaahdaan ayan kaan saa awgeed baa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rida arab fii rida alwaalid wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalid ilaahay raalli ahaanshihiisii wuxuu ku jiraa waalidka raalli ahaanshihiisa cadhada allena waxay ku jirtaa cadhada waalidka baa la yidhi waalidka haddaad ka cadhaysiiso waxay u dhowday inaad rabbigaa ka cadhaysiisay sidaa awgeed waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inaad ku dadaasho u fiirso weligaaba cibaado badnow saxiixu muslimka qisadii kale ku taalee jurayj aan kuu tilmaamo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay saddexdii ilmood ee dharabta ku hadlay waxa uu sheegay nin jurayj la yidhaahdaa inuu jiray oo caabid ah oo meel u baxay keligii meeluu ku cibaadaysto oo guri intuu dhistay dabaqa yaro sare gala oo halkaa keligii ku cibaadaysta hooyadii baa soo booqato u timi dabeetana isagoo salaad xidhan bay u timiyo yaa jurayj bay tidhi ummii wa salaatii buu yidhi hooyo iyo salaad dabeetana salaaddu iska wato hooye way iska noqoto maalin labaad bay timi sidii si leeg buu ugu yeedha haddana ninkani waa nin cibaado u go'ay hooye iyo salaad buu yidhi dabeetana salaaddii buu iska wata mar saddexaad bay u timi sidii oo kalaa dhacday dabeetana way habaartay ninkan caabidkii halkaa ku jira ilaahu isaga iyo dumarka xunxun istus bay tidhi waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxuni inay sarkaan waxaa la yidhaahdaa qisada meeshan waxaa deganayd gabadh aada u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo jurayj la ammaanayo cibaadadiisa laga warramayo ay maqashay waxay tidhi kaa sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo anaa idin tusi doona dadka badh baa shayaadiina oo xumaha jecel qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhigga weydaarin doonay aniga igu sima way soo baxday jurayj waa isu bandhigtay laakiin ninkani cibaado u go'ay qowsaar ama dhoobisaa u taqaanin mid xoolo raaco meesha jooga ayay gabadhii isu dhigtay ilmay dhasha yaa dhalay baa la yidhi ilmahana waxay tidhi jurayj baa dhalay jurayj baa sawmacadiisii baa la dumiyey meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuugga xumeeyo intuu hablaha u weydaartaa buu halkan wadaad iska dhigaya waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi war bal ilmaha u yeedha ilmihii baa la keenay ilmihii buu gujiyey laba ragcadood buu tukado kadib intuu ilmihii gujiyo yidhi man abuk war aabbaha waayo ilmihii yaraabaa ilaahay ka hadiyey wuxuu yidhi waa qowsaarka gela adhiga raaca waa ninka xoolaha jira qisadani laba wax bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badna waa haddii odagiyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay isagana markii dambe ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey asalna waxaabay culammadu leeyihin faradka loogama baxo laakiin adoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho waxaa waajib kugu ah inaad hee tidhaahdo waayo sunnuhu waa sunne waalidka inaad u jawaabtaana waa faral idan waa inaad ka baxdaa bay culammadu yidhaahdaan aad u jawaabtaa waalidka waxaynu tilmaamaynaa marka waalidka habaarkiisu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya axaadiista ka asaxday saddex baryo xagga alle lama celiyo waxaa ka mid ah dacwat lwaalid riwaayaadka qaarkoodna dacwat lwaalidi calaa waladih ayay tilmaamayaan habaarka uu habaaro waalid ilmihiisa wuu ku dhacaya siiba hooyooyinka waxaan leeyahay afkiinu iyo habaarka baranin inkaari kugu dhacday iyo habaar baad qabtaad iyo waxa kan habaar buu qabi uun in badanoo soomaali aan u taagla-ana islaamaha ku yidhi habaar baad qabtaa habaarkii loogu duceeyey bay qabaan idan waxa fiican qofka muslimka ah isaguna inuu wax fiican ku hadlo inaanu erayada xun carabkiisa barin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay habaarka waalidku wuu dhacaa waxaynu leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha waalidka loogu samafalayo inaad asxaabtii waalidka isaga daaye
cidduu la saaxiibkaa inaad xidhiidhiso haddaad ogtay cid aabbahaa ama hooyada ay ixtiraami jirto saaxiib ay la ahayd inaad xidhiidhiso cabdillaahi ibnu cumar iyo ardaygiisii cabdillaahi ibnu dinaar taabicigii la odhan jiray iyagoo xaramka yimoo ka noqday dhexda maraya ayaa nin reer baadiyii ku soo baxay dabeetana ibnu cumar baa dameeruu fushanaana siiyey cumaamadiisiina u furay cabdillaahi ibnu dinaar baa wuxuu yidhi ibnu cumarow ninka kani waa reer baadiyuna wax yar bay ku qancaane haddaad cumaamadda siisay maxaa dameerka ugu dartay baa dameerkaaga iska fuushanaatay wuxuu ku yidhi ninka kana aabbihii ahlu wuddu cumar buu ahaa aabbahay saaxiibkii buu ahaa markaa aabbahay dadkuu jeclaaya saaxiibka la ahaa mar hadduu wiil kan dhalay saas baan ku xidhiidhinayaa buu tilmaamaya silatu lwaalidi ahlu wuddu abiih nebigaa yidhi ina abar albir sama waxaa ugu fiican xidhiidhka uu waalidku xidhiidhiyo dadkii waalidkii jeclaayeen waalidka ama aabbaha ha noqdo ama hooyada ha noqdee intay xidhiidhin jireen inaad xidhiidhiso qaababka loogu samafalo waxaa ka mid ah inaad ilaahay baryadiisa u badisid nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay camalka bini aadamku inuu go'o ilaa iyo 3 mooyaane 3daana waxaa ka mid ahaa waladin saalixin yadcu lahu wiil saalixa oo u soo duceeya bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jannada waalid ku jira ayaa darajadii uu lahaa kor looga qaadaa markaasuu yidhaahdaa annaa lihaada ilaahay ow intan maan shaqaysana xaggay ka timi fayuqaalu biistigfaari waladika lak waa dembi dhaafku ilmahaa dhashay ilaahay uu kuu soo weydiinayay subxaanahu wa tacaala aabbaha hadduu nool yihiyo hooyada hadday nool yihiyo hadday dhinteenba ilaahay uu bari hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay uu bari wixii aad cibaado u samayn kartana u sameeye sharcigu baneeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadh baa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday jaariyad baan siiyey dabeetana way dhimatay jaariyaddii waa tan odda igu soo noqotay maxaan sameeyaa waxay ka cabsatay in sadaqada laga aqbali waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adiguna ajarkaagii waad heshay dhaxalkana ilaahay baa kuugu soo celiye qaado calaa kulli xaal waxay jeclayd inay xajta buu yidhi ka xaj waxaan ku soo koobayaa wixii cibaado sharcigu baneeyey taan sharcigu bannayn maaha wixii sharcigu baneeyey cibaado ana u samee وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم